barnaamijkan sooyo iyo soos wada fulinayaan oo ah siyaasadii waxbarashada qaranka Soomaaliland oo markii hore wasaaraddu abuuf garaysay oo la qoray in bal loo soo bandhigo dugsiyada toban iskuul oo ku yaala min Boorama ilaa Sheekh marka waalidka haddii la ku leeyahay ardayda macallimiinta iyo maamulkaba la yiraahdo wixii nala eega waxaad ku kordhin kartaan lagu soo kordhiyo waliba gaar ahaan balse wuxuu ka koobnaa marka hore haddaan idiin sheego 22 qodob 22 qaybood marka laba qaybood oo kaliya oo kamid ah yahay waxa dib u eegaynay oo kala ah qaybta dugsiyada sare oo secondary section-ka iyo qaybta curriculum-ka labada qaybood markii aan soo bandhignay dhammaanba dugsiyada ay ka hadlayo iyo waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulka iyo ardayda waxyaalo badan oo inagu soo kordhiyay baa jira. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Wasaaradda Waxbarashada iyo Saynisku waxay leedahay siyaasadaas oo loogu talagalay in lagu kobciyo ama kor loogu qaado tayada iyo tirada waxbarashada lagu hagaajiyo maamulka iyo maareynta dugsiyada. wasaaraddu markay siyaasadan samaysay waxay samaysay siyaasadan markay dhammaystirantay waxay la wadaagtay bulshada si loo ogaado wixii feedback ee ka soo noqonaya falcelin ee bulshada ka soo noqonaya. Siyaasadani waxay ku fadhiday sidee loo tayeyn karaa dugsiga maamulkiisa macallimiinta ardayda waalidiinta iyo dugsiga sidee la isugu xoogi karaa sidee iskuulka deegaankiisa loo hagaajin karaa qodobadaas ay ku fadhiday marka laga hadlayo qaybta khusaysa dugsiyada sare ee siyaasadda. marka wasaaradda waxbarashada gaar ahaan qaybta waaxda dugsiyada sare iyadoo la kaashanaysa hay'adda Soonyo waxay samaysay inay bulshada u bandhigto gaar ahaan ardayda wax ka barata dugsiyada sare siyaasadda dugsiyada sare qaybta ka qaabilsan dugsiyada sare siyaasadda wasaaradda waxbarashada. marka 10 dugsi oo saddex gobol oo waaweyn ka tirsan ayaa xog ururin lagu sameeyay. xog ururinta waxa ka soo baxay markii ardaydii la wareystay qaabka ugu fiican ee wax u dhigan karaan macalinka in xiisadood bay u baahan yihiin gudida waalidiintu maxay u qabataa manhajka keeba manhajkoodu inuu la jaan qaadayo waqtigooda waxaas oo dhan markii saameyn lagu sameeyay waxa ka soo baxday siyaasadda oo la isla gartay in horta wixii lagu sameyn karo xoojin siyaasadda lagu xoojiyo isla marhaantaana in dabagal lagu sameeyo ama xoojin lagu sameeyo isla xisaabtan cadna ay meesha ka soo baxdo ah in maamulka dugsiyada la xoojiyo isla xisaabtankiisa way dugsigu hadda waa maamulka dugsigu waa geedka laga soo galo dugsiga waa maamulku waa waxa isu haya ardaydii macallimiintii waalidiintii iyo dadkii kale ku xidhnaa dugsiga maamulka isu haya marka maamulka in la tababaro kor loo qaado xirfadiisa maamul la hagaajiyo. waxa kaloo ka soo baxday ama dadkii la wareystay ku tala bixiyeen in macalinka isna isla xisaabtan u yeesho macalinka isla xisaabtankiisu maandooyinku dhigayo marka hore horta in lagu tababaro oo noqdo qof xirfad u leh maandada uu dhigayo marka inta la helo in macalinkiina lala xisaabtamo qaabku uu dhigayo ama methodology-gu isticmaalayo kaabayaasha casharka u adeegsanayo inuu cashar diyaarin leeyahay scheme of work iyo diyaarintii cashartii qorshihii casharka oo lafdhabar u ah gudbintii casharka waa in qodobada la helaayo isla xisaabtan la helaa oo macalinka aanu xiisada gelin ilaa iyo uu helo cashar diyaarintii uu sito iyo qorshihii casharka. taasina waxay ka qayb qaadanaysaa oo u sahlaysaa ardayga inuu casharkii si fiican u soo fahmo macalinkiina waxay fursad u siinaysaa casharkii intaanu klaaskii dhigin inuu waqti qaato oo ku soo akhriyo oo isagoo diyaarsan uu goobtii klaaskii yimaado. waxa kaloo iyana meesha ka soo baxday in la xoojiyo isku xidhka waalidka iyo dugsiga oo dugsiyadu aanay de waalidku markuu ilmihiisa maalinta uu keeno aanay dugsiga ugu dambeeyne inuu waalidku la socdo ilmihiisa xiriirkaana la soo celiyo oo waalidku si joogta ah taxanaha waxbarashada ardayga uu la socdo la soo celiyo qodobkaasna waa muhiim. wasaaraddu waxay leedahay manhajkaas oo manhajka waxbarashada qaranka
dugsiyada sare manhaj u gaara baa jira manhajkaasi syllabus baa jira uu ku soconayo oo ay tahay maando walba inuu syllabuskaasi uu dhammaystiro 1 ilaa 4 maandamaandiis ugu xidhan yihiin marka inuu manhajkaa dhammaystirayna in la ogaado oo macallinkii lagu dabagalo dhammaystirka manhajka waxa kaloo iyana muhiima oo qorshaha ka soo baxday oo siyaasadana ku jirtay in agabka wax lagu baranayo ee dugsiyada sare iyana la tayeeyo hadday noqoto teaching aidkii qalabkii wax lagu baranayay hadday noqoto laabkii librarygii iyo ICT lab oo la hirgeliyo oo ardaydu ay yaqaaneen marka dugsiyada sare ku jiraan computer skillkii xirfadaas oo saamaxaysa ardayga inuu baaris sameeyo marka ka wasaarad ahaan iyo doorka wasaaradda waxbarashadu siyaasadda marka hore wasaaradda waxbarashada lahayd iyada dejisay waxaana lagu dejiyay wada tashi la sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasaddu waa dhaqangal wasaaradda waxbarashada taala la fagurkana wuxuu xoojinayaa siyaasadda qodobadayna farayso sideeba loo fulinayaa sidoo dhaqangal u noqdo marka doorka wasaaradda waxbarashadu waxa weeye inay daba gasho hirgeliso qodobada siyaasadda ku qoran bulshadana wada tashigeeda lama joojinayo had iyo jeer document kasto la sameeyaa de muddo qaata markuu muddo jiro dubba loo eegaa waxyaalaha ku soo kordhay innovationska leeyahay lagu kordhiyaa cusub ee ku soo kordha waayo 5 sano ka hor halkii bulshadu taagnayd de ma taagna maanta marka xirfad kasto cusub oo soo kordha de waxay tahay in weelkeedii la helo marka kawaaxahan waxa la wixii innovationisa waan ururayna marka dambe noqoto siyaasadda dub loo eego siyaasadda waxbarashada qarankana insha Allah waa lagu dari doonaa marka guud ahaan waxaan oran karaa shirkani waxa uu ahaa shir muhiimad weyn u leh kor u qaadista tayada waxbarashada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay socotay dardargelinteeda iyo kor u qaadisteeduba aad iyo aad ayaan ku salaamayaa arrimaha guud ee ka soo baxay shirka waxa kamid ah la isku qaatay dardargelinta dugsiyada sare ee dawladda oo uu halka ku soo bandhigay agaasimaha waaxda dugsiyada Yuusuf uu ku soo bandhigay qorshe dhammaystiran oo wax lagaga qabanayo dhammaan sekondariyada dalka sidii kor loogu qaadi lahaa tayadooda waxbarashada waxa halka la isku qaatay oo isagana lagu go'aamiyay kormeerka oo imika dib loo xoojiyay in laga sii amba qaada halkaasi oo shaqadaas ay noqoto shaqo joogto ah oo ay markaste wasaaraddu qaban doonto waxa weeyaan talaabo hor leh oo la bilaabay waa talaabo hor loo ku dhiirashale waxa weeyaan la isku tashado kan maanta inuu ku nimi iyo wada hadaladii soo socday waxay ka mid tahay marka bulshada laga qayb geliyo in ayaguna bal fikirkoodii aaraadooda ku darsadaan siyaasadda si gaar halka waxaad ugu eegtay marka imika dugsiyada sare iyo siyaasadda waxbarashada marka qaybaha ka khuseeya dugsiyada sare saa wada ogsoontihiin waa marxalad muhiim ah oo ah muhiim marka xagga kobaca waxbarashada waayo waa bridge-kii isku xidhiyay marka tacliintii sare iyo tacliintii asaasigeed qofku markuu 12 sano wax soo barto oo uu gudbiyay marka tacliinta sare marxaladda tacliinta sare oo marxalad loo baahan yahay marka in la siiyo marka waxbarasho tayo leh la saaro marka culays fara badan aqoon fara badan la siiyo aad iyo aad looga taxadaro marka ardayga iyo mustaqbalkiisa maamulayaasha macallimiinta dugsiyada sare wax ka dhiga iyo mas'uuliyiinta kaleba waxaan aad ugu dardaarayaa marka dugsiyada sare marka waxa jira marka waxyaalo fara badan oo runtii ka dhiman ardayda dugsiga sare markuu joogo wuxuu loo baahay marka aqoonta la barayo kasakow inuu helo marka tijaabada sayniska oo kale tusaale ahaan hadduu xisaab dhiganayana marka xisaabtii aan pure mathematics la baranay xisaabtii kale practicalkeedii si nolosha loo falgalaysay waxyaalo badan la fahansiiyo